السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصاحبكين ولكن منصر محمد عبدي أرنت هذا أنك هل ربو وحريرة أو إلا هاي تيم دور ملها وأنا كلير جريء أرنتاس سيدو لوجيل وأحريني هاي سيدا ورر أنكو كلصون هاي وأنك هلا يهي أدى نبض سودة أما سردون كقرنك النساء سيدو لوجيل وحال وحستا أيضا الحريرة إنه أها حبين كترسن أورك على الشباب ninkan sidoo lugeel magaciisa lagu sheegay oo aan ilaa hadda anigu ba aqoonin magaciisa saxda ah waxa la wariyay inuu yahay nin sirdoonka Soomaaliya sida ay sheegeen eedahaas lagu eesto isla markaasna la raadinayay saraakiil kala duwan oo aan la hadlay waxay ii xaqiijiyeen walow ay diideen maadaama baaris ay socoto in warka ah in sidoo lugeel uu xiran yahay ay xaqiiqo tahay oo ku jiro xarunta dambi baarista ee hay'adda sirdoonka qaranka halkaas oo su'aalo lagu weydiinayo su'aalaha la weydiinayana ay yihiin wax la xiriira eeda loo haysto oo ah in sidoo ninkan la yiraahdo uu yahay nin shabaab waxa la sheegay marka dadkii aan la hadlay ay xaqiijiyeen qaarkood in ninkan tuhunka uu soo galay ay bilaabatay kadib markii fanaankii Abshir Gaarane la qabtay oo nabasuuda video ay baahisay ay ku sheegaysay in Abshir Gaarane uu yahay nin ka tirsan ururka al-shabaab sida ogeeyna Abshir Gaarane uu shaqeynayay maamulka gobolka Banaadir haddaba sidoo wuxuu kamid ahaa sida la sheegay oo saraakiishu ay inoo xaqiijiyeen shakhsiyaad kamid ah ururka si official ah adana wasuudu wali war ugama aysan soo saarin laakiin xaqiijinta oo ah ilaha aan leeyahay oo warinimadeeda waxa ay xaqiijiyeen in ninkaasi uu xiran yahay eeda loo haystan ay tahay eedaas waxaan ku baranay marka daba sidoo lugeel marka laga soo tago xogta hay'adda sirdoonku ay heli karto ay la xiriir eed hadda ay sheegtay waxa anaga sidoo lugeel ku baranay inuu ahaa nin YouTuber oo la shaqeynayay xarun YouTuber xaruntaas YouTube-kan ay ninkaasi shaqaaleysiisay sababta u shaqaaleysiisada ay ahayd kaliya ayaga oo aan ku ogeyn inuu ninkan yahay dhinac kale oo eed kuma lahan team durdur oo uu ka tirsanaa laakiin waxay rabeen in ninkan oo mihnad leh ama xirfad leh fursad la siiso u shaqeeyo haddaba sidoo lugeel eeda ku dhacday ee hadda hay'adda sirdoonku ugu xiran yahay ayaa midaasi ah way jirtay warar iskhilaafsan oo sheegay sababta uu uga tagay goobta inay tahayba looga buriyo inay tahay eedan soo gashay ama tuhunkan soo galay warar kale tan sida hore idin kugu sheegnay xaqiijinay laakiin warka hadda soo dhacay oo saaxiibada xog waraysi janaalka magaca uu ka turjumayo ah xog waraysi nooc kasta oo xog ayuu janaalku u furan yahay arrimo bulsho siyaasad wax kasta waxay xaqiijinayaan in sidoo lugeel uu arintaasi u xiran yahay hay'adda sirdoonka uu xiran yahay baaritaan uu ku socdo raadka soo galayna lagu haystana uu yahay inuu yahay nin ka tirsan shabaab marka ilaa xogogaalka aan magac dhaweeynin sababtoo ah waxa jira wax la ilaaliyo source-ga qofka ku siiyay ina ilaalisid xaqiiqan wax la muhuraan waa waajib waa source-ga warkana siiyay hay'adda sirdoonka aan ka helin saraakiisha ah waxay xaqiijinayaan in ninkan xiran muddo la raadinayo laakiin uu ahaa nin qarsan oo aan wajiga lagu raadinayay aanan lahayn oo waji kale joogay oo magaalada ku shaqeynay hase ahaatee qabtan iyo kadib markii la qabtay fanaanka Abshir Gaarane oo la tuhunsan yahay anaga ma ku cadeyn karno wuxuu yahay labada ragba laakiin la tuhunsan yahay hay'adda sirdoonku ay aaminsan tahay inuu ahaa nin ka tirsan video laga soo duuban oo ku qirtay waxa uu xaqiijiyay in ninkan uu ahaa xubin kale oo ka tirsan oo la shaqeynaysa sidaas ayuu haddaba ninkan la hadlay sargaalka aan noo xaqiijiyay oo uu noo sheegay in raadku ninka sidaas ku soo galay sidaasna ay hay'adda sirdoonku ku qabatay ninka gacantana ugu dhigtay hadda marka sidoo lugeel waxa dareem kartaa inaysan teamka durdur wali ka hadlay arintan culayska arinta si xoojinaysan waxay tahay arinta ninka lagu haysto waa arin sirdoon arin amni la xiriirta oo ah shabaabnimo aadayna marka loo fiiriyo xaaladda noocaas oo kala laga hadlaa adagta sababta awgeed janaal team durdur way ka gaabsadeen haddaba waxa la filayo waxay tahay in ninkan ama la soo bandhigay sidii si lamid ah fanaankii Abshir Gaarane hay'adda sirdoonku ay shaacisay ay soo bandhigto amaba in arintan si kale loo fiiriyo aniga waxaan la hadlay dad kala duwan ayaan la hadlay xaqiiqa war aanan la xaqiijinna midin la soo wadaagin soo marka waxay xaqiijinayaan ilaha aan la hadlay oo dhan waxay xaqiijinayaan ninka inuu xiran yahay official inuu xiran yahay sidoo lugeel xabsi ku jiro sidoo lugeel oo nin madadaaliye YouTuber ku soo caan baxay inuu karbaasho dadka oo janaalkaas weyn ay durdur ka soo muuqan jiray maanta waxa ku xiran yahay
ama ku jira gacanta hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya. halkaas ayaa su'aalo la xiriira tuhunkiisa lagu weydiinaa. haddaba muddooyinkii dambe ma ahan kaligiis, waxaa jiray baaritaano guud oo hay-adda sirdoonka waday oo ay ku qabatay Abshir Gaarane, macalin Ilka Case. Abshir Gaarane oo fanaan ahaa, Ilka Case oo macalin ahaa, gudoomiye rugta ganacsiga gobolka Banaadir oo asagana lagu eedeeyay arintaas, walow warar kala duwan ay sheegeen la sii daayay. eeduhu way badnaayeen. hadda waxay maraysaa youtuber Sido Lugeel in asaguna uu kamid noqday dad tuhunka uu soo galay oo sidaas hadda ugu jiro xabsiga. dabcan tan iyo qabashadii haddaba Ilka Case waxaa soo baxayay ilaha ama sourciga hay-adda sirdoonku ay raadinayso, oo maadaama la xog wareystay Ilka Case oo macalin ahaa, weliba lagu tilmaamay maskaxda shabaab ee ku jirtay gobolka Banaadir, tiimka ka howlgalayay hal abuurahooda ugu weynaa. wax badan ayuu runtii bidhaamiyay sida hay-adaha sirdoonka iyo xubno ka tirsan ay noo xaqiijiyeen. waxaa marka xaqiijintaasna ka mid ah in dhowr jiho ay ku jiraan raggaas, macalin ha noqoto, fanaan ha noqdo, youtuber iyo wixii lamid ah. adiga qayb sectionska bulshooyinka ay ka kooban yihiin, qaybaha bulshooyinka oo dhanba inay ku jiraan ayaa runtii la isku raacay. ninkanna waxaa la sheegayaa inuu xiriir dhow la lahaa, wada shaqayn la lahaa, ama ay macaamil ahaayeen. Ilka Casena qayb ka ahaayeen, fanaankana sidoo kale.